kumay hubaysnayn xabad baa lala dhacay Soomaaliland xornimadeeduna waxay ku timid waa mudaharaado saasoo kale dawladda si aad bare lagu mudaharaaday oo dadka xabad lala dhacay waa maxay farqiga u dhaxeeya dad aan hubaysnayn oo 30 sano kadib xabad lala dhacayo iyo kuwii si aad bare la dhacay arrinka xabadaad leedahay dad shacab la toogto ayaa kula muuqatay in xorriyadu meel fiican marayso intaan anaga hayno boolisku cid toos toogteen ma jiro laakiin saddexda qof dhintay soo xabad wasiirka isgaarsiinta tahay internetka maalinta la jaray 6 subaxnimo ilaa 4 galabnimo Soomaaliland waa wadan xor ah oo waliba dadku ay internetka lacagta bixiyaan yaa awood u siiyay wasiir shirkadaha isgaarsiintu inay dadka ka jaraan internetka maxaad qarinayseen oo internetka loo jaro maxay ku timid waa waxa weey go'aan guddi weey xorriyada qowlka ma soo jeedo xorriyada qowlka saacada kadib loo soo daayay الله naxariistay hal maalin ka hor magaalada Hargeysa waxa aas qaran loogu sameeyay abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo kamid ahaa abwaanada waaweyn ee Soomaalida guddi madaxweynaha Soomaaliland u saaray Muuse Biixi Cabdi ayuu kamid ahaa wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil oo hadda dhankayga midig taagan macaali wasiir MMTV ku soo dhawow guddidii aaska ayaad ku jirtay abwaan Hadraawi wufuud kala duwan baa timid Soomaaliya laga yimid Djibouti baa laga yimid deegaanka Soomaalida laga yimid waxa si gaar ah hadalhayn u abuuray Yuusuf Garaad oo ergey Soomaaliya bal ka waran adigu wufuudi ka timid iyo arinta hadalhaynta dhalisay بسم الله الرحمن الرحيم أدبت مع سنتهاي كل أبوان كوها أبوان وين أبوان أنت في الصومال كوها هذا الشو أبوانه لكن هذا الشيء خريج الصومال جريد سنة ما أنتي تجمعي واحد سبت دون عصني كل مدة كوابان ضد بدنا يمنكر الهواي ويكذب دعين إننا شرعات هان وين ميت كهر الله عصو الإسلام سوي كريه دان تشيلين ظروف دي بدي جيسا كارون هانتي يد وقت كوبنا هذا ندد عادو فر بدن باك ساقيب قلي ما هدنقنا كل ونوجا قد بيننا وجاه سويفتي طبعا حمنات كوبنا وكيم تجيبوتي وهو جامين وزير كوريا ريم يدبد على عبد الفارح يروح اللي بعنا كتل سنقولها برلمانكا سواء كان راح يميد وفتي عادو بدن وكسي دولة ديجان كوي يقول اللي بوزير أي هو جامين كل إلى ما أنتني شو حفلة دي حفلة كساقيب قلي دت كلا فر بدن وي كساقيب قلين أرنك يوسف جراد مر بحيل هين شري sababtu ku yimid waxa isagoo joogay meel dhow horena iman karay kamaadaama nuxil hayn waxay noqotay in loo galaado ciddu xeerka galiyuun baana laga dhaqaaqay mar walba marka taasi ku timid wuxuu yimid isagoo bahda ku jira fanko in badan abaan ka xiriir lahaayeen saas uu gaar ahaan ugu yimid aan arkay qoloyin wax ku qoray laakiin wax halkaas wax siyaasad laga dayamahay xisbiga mucaaradka ee wadani xogayso warfaafinta hadlay oo waliba MTV laad waxa uu ku yeedeeyay xukuumaddiina sii deysay Yuusuf Garaad oo xil Soomaaliya ka haya oo ergey ilaa hadda uu yiri lama oga meel laga qaado ergeyga badcas arinta maxaad ka oran waa buu joogay isaga laftigiisa hadaad sawirada ka arkaysay afayeenka laftigiisu waa uu daba taagnaa laakiin mas'uuliyadda ogolaanshaha xukuumadda la soo baxbata laftigeeda marka la joogo toos u sheegi lahaa intuu miidiyaha soo marayo waan wada askan xurmeynay ida laftigeeda isagoo xurmeynay hadana qoraal yar ka daba keena meesha ma taa laakiin anagu intaan ognahay wax xilo hayan kala Yuusuf Garaad maanta ma jirto meesha laga qaaday ma ogtiisa ida laftigeeda taa anagu wax nagu dambeysay inuu ahaan jiray mar iyadoo dhan kale leegeeda qof maran xiriir haayeen baha marka halkaas wax siyaasado laga raadiyo haba yaraatay ma jirto wixii kalena maalintan oo kale waxayd maalin waxa weeye awood la saarayay aaska marka anagu intaan ognahay xeerarkeena wax ka hor imanaya kuma aan arag dad kale oo badan oo hadal hay way jirin laakiin xeerkeena aan ogolayn marka kulay taa iyada halkaas aan kaga bixiyay macaali wasiir Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil madaxweynaha Soomaaliland ayaa adiga iyo xubno kale idin magacaabay guddi baaritaan oo baaraysa mudaharaadada Soomaaliland ka dhacay ee dadku ku dhinteen macaali wasiir madaxweynuhu shir jiraayid buu habeenkii madaxtooyada ku qabtay warbaahinta madaxtooyada ka soo duubtay khasaaraha dhashay iyo waxa loo mudaharaadayba xukuumadda mudaharaadka fasaxday haddana warqadda wuxuu ku yiri dadku waxay mudaharaadayeen iyo khasaaraha ay soo sheeg madaxweynuhu labada jeer markee saxay markee khaldan mabdahan waa loo ogolaaday in la fasaxo qayb baan ka ahaana guddidii wasiiradaha la hadlayay xisbiyada mucaaradka goobo waxa loo ogolaaday 6 goobood oo 6da gobol doorasho kumay joogsan marka khasaaraha la sheegay waxa weeye maadaama ay shuruudii looga fasaxay jabiyeen mas'uuliyadda iyagu leeyihiin soo kiciyeen dadka oo cidda kicisay inay mudaharaad rabshada wataan ay dhacaan hadalkooda iyo ku yimid awaamirtooda waa madaxda xisbiga iyo taas madaxnu sheegaya annagana wuxuu noo diray waa arrimo farsamo weey
marka waa laba dhinac oo dhinac waa amniga wax gacanta ku hayo baaraya booliska iyo xiraalinta waxna waa tii guud waxa weeye khasaaro nafeed iyo mid maaliyadeed iyo mid bulsho yimid marka guud ahaan aan arrimaha farsamada aan ka soo warbixin u sheegay laakiin mabda guud waxa weeye ninka dadka u yeedhay waliba diiday shuruudii loogu ogolaaday goobihii loo xadidayna yeeli waayey meelo kale waliba dadka u tilmaamay isla markaana aad arkayseen xabii ka soo baxayay miidiyaha ama warbaahinta cidii ka dambeysay baa dee mas'uuliyadda yeelanaysa kulli warbixintu noo socotaa markay dhamaystirtana waanu la wadaadguna bulshada dadku waxay isweydiinayaan oo xukuumaddiina lagu dhaliilaya aad ku celcelinaysaan mucaaradka mas'uuliyadda leh mucaaradku ma hubaysnayn ciidamo kala duwan ayaad soo geliseen magaalooyinka laga mudaharaadayay dadkii bay weliba qaar iskugu darayeen shiid iyo xabad in qof shacaba oon hubaysnayn xabad lala dhaco soo mas'uuliyaddeeda xukuumaddu ma laha xeerka markaad eegtid xeer 2012 xeerka dadku akhriyaan qodobkiisa 10aad baa ayaa xadidaya yaala mas'uuliyadda isagana awoodda siinaya wasaaradda arrimaha gudaha inay ogolaato inay diidi karto gebi ahaanba inay bedeli karto qaabka inay meelo gaara u xadidi karto halkaas horta laga dhaqaaqay mas'uuliyadda halka ka dhaqaaqay booliska laftigiisa ilaa 5 istaan xogta ku ay kulay booliska wasaaradda arrimaha gudaha laakiin xogta soo gaadhay ugu yaraan 5 baa maanta ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan inkastoo 12 ka mid ay uu shilaha laakiin ugu yaraan 70 waxa gaadhay dhaawacyo iyo maaragtay nabar ka soo gaadhay mas'uuliyaddu waxa weeye yaa abaabulay yaa hawshan mudaharaadka rabshadaha watay yaa soo abaabulay taasay taal xeerka in sheegayana ma aha wax la iska leeyahay laakiin xeerka markay noqoto waa xeer kale wax ka dhaqaaqa xaway qodobka 10aad iyo qodobka 13aad labada markaad eegtid imika tusaale ahaan markaan aanu doonayaan 10 qof meel isugu keeno cid baa dee abaabulaysa waxa kale oo ogtay in xisbiyadu imika ay sameeyaan shirar waaweyn dadka isugu yeedhaan madaxdooda laftigooda markay imanayaan airportka way ku soo dhaweeyaan meelka gobolada lagu soo dhaweeyaa dee waxa ku suntan calaamadaasina waa xisbiyaday haayeen ma jiro wax iska dhaqaaqon marka mas'uuliyadda ka mid waa ka markaan soo dhamaystirnana iyadoo wixii faahfaahin dadku la wadaagi doona xabadda ayaan su'aal kale ka weydiinayaa dadku may hubaysnayn xabad baa lala dhacay Soomaaliland xornimadeeduna waxay ku timid waa mudaharaado saasoo kale dawladda siyaad bare lagu mudaharaadayay oo dadka xabad lala dhacay waa maxay farqiga u dhaxeeya dad aan hubaysnayn oo 30 sano kadib xabad lala dhacayo iyo kuwii siyaad bare la dhacay arrinka xabadda aad leedahay anagu intaan hayno boolisku waxay muujiyeen dad ma dhinteen wasiir dulqaad far badan 5 qof dhintay intaan ognahay mas'uuliyad daro Soomaaliya waxa weeye 5 qof intaan ognahay 2 qof ugu yaraan waxay ku dhinteen si kama ah saddexda kale laftigooda maanta markaad eegtid ciidamada laftigooda tiro ka mid ah rasaas baa ku dhacday saddexda qof ee dhintay soo taasi mas'uuliyad ma wixii laga dagaalamay dagaalanka maxaad uga jeedaa macnaheedu wixii aysan u dagaalamaysa xornimada in si dadku ay xor noqdaan ma la moodaa inaad caburinaysan dadkiyo mudaharaad xaq u lahayn sameynaya ay xabada dhacaysan labada cidda caburinta iyo maaragtay aan ogolayn waxa weeye xukuumadda waxa weeye xukuumadda ogolaatay in lagu mudaharaado maalin walba waxa ka baxa miidiyaha hadallo qadafa oo aan diinteena iyo dhaqankeena midna xataa sharciga laftigiisa madaxda si toos loo caaya marka taasi ma waxay tahay waxyaabaad sheegaysaa waxa weeye su'aalta maanta su'aashu u fiirso MMT ugu yar waxa waree ka baxa maalin walba halka ay dad ka soo daayaan noocay doonaan haadaan maxaad ku macnay leedahay isku dir bulsho hadallo kala duwan ay toos oo dadka qaarkood wax laga sheegayo deegaano qaarkood si toos ah loo weerarayo waxyaabaha ka baxay miidiyaha inta waxa dheer qoraalada iyo been abuurka la isku rakibayo waxaan jirin marka waxa weeye aan waxa oran karaaba xadkii ka baxday xorriyadda markaad arkay laakiin xukuumaddu waxay muujisay dulqaad aad iyo aad u fara badan booliskuna waxay muujiyeen inay aad iyo aad u xakameeyeen ay maaragtay wax badan dulqaateen dhaawac fara badan baa yaal kulay hay'adaha amniga xilligooda sheegi doona laakiin tiradaan haynaa tira aad u badan weey marka dhowr iyo 70 askari dhowr saacadood gudahood bal igu macnaa waxa dhaawac soo gaaray muxuu yahay bal macnihiisu muxuu noqonayaa inta shacab la toogto ayaa kula muuqatay in xorriyaddu meel fiican marayso intaan anagu hayno boolisku cid toos u toogteen ma jiro laakiin saddexda qof dhintay soo xabad kuma wali baaritaanka socda uu dhameystiran yahay wayna soo sheegi doonaan intaan laakiin xogtan soo gaadhay aanu ku sheegi karaa mudaharaadada soo kuma dhiman ma waxa weeye xogtan hayna waxa markay dadku noqdeen mudaharaadka ayaa dhacday rabshad intuu socday maaha
saacadii dambe weliba inanka burcee dhulka yaalla ee dhiigu ka socday xabadda ku dhacday maxaad ka odhan burcayntan qabaa waxa weeye ma ahayn midna kuma dhicin xabadii burcaga horta ma raba inaan sii gaaro laakiin inahan ogahay arrinka burco iyo ceergaabo ma ahayn wax toos hargeysa laftigoodu wax toos oo ciidanku ay meel gaaban isaga yimaadeen intaan xabadiba kuma dhicin dadka xabado way dhaceen ciidanka laftigiisa tiro ka mida waxa ku dhacday rasaas anaan garanay meel yimaadeen booliska ka jawaabi doona xilligeeda markay gaadho way iman doontaa marka ma doonayo inaan ka hor dhaco waxyaabaha baaritaanku soo saari doona hay'adaha xindeyna dembi baarista ayaa gacanta ku haya wasiirka isgaarsiinta tahay internetka maalinta la jaray 6 subaxnimo ilaa 4 galabnimo Soomaaliland waa wadan xor ah oo waliba dadku ay internetka lacagta bixiyaan yaa awood u siiyay wasiir shirkadaha isgaarsiintu inay dadka ka jaraan internetka maxaad qarinayseen oo internetka loo jaro lama qarin laakiin guddiga amniga qaabilsan nabadgelyada go'aanka gaadhay iyadoo si guud loo ilaaliyay nabadgelyada marka anagu wasaarad ahaan anagu fulinayna go'aanka guddiga amniga ayaa la gooyay waana go'aan dawladeed oo soo baxayba hay guddidaasay gaadhay maxay ku timid waxa weeye go'aan guddi weey xuriyatul qowlka ma soo jeedo xuriyatul qowlka saacada kadib loo soo daayay 6 ilaa 4 galabnimo Soomaha dambi la galay waxa ka badnayd inta la badbaadinay wax badan ma intaas marka wasiir waxa la qarinayay internetka loo jaro maxaa wax la qarinayo wixii ba soo tala soo galiyay markii loo jaro amni ahaan baa hay khalkhalay adaa wasiirka isgaarsiinta waa maxay ee loo jaray waxba wixii marka dambe iyadoo soo badbaasay waatiin soo daynay marka taasi wax laga raadiyo maha waxay leeyihiin xabadii iyo wixii ciidanku ridayeen ayaa doonaysay inaan la baahinin 4 galabnimo soo deysay waa la baahiyay laakiin 6 ilaa subaxnimo ilaa 4 galabnimo inaan la soo deyn khasaarihii dadkii lacagta internetkooda ka bixinayay waxaas oo dhan yay doonanayaan waxa wixii aad sheegaysaa wax la qarinayo kana laga saari lahaa waan la karayaa wada lagu joojiyo waxyaabaha la geliyay in laga saaro waan kari karaynaa wax la qariyo ma jiro intuu ku jira qofku xilligu doono daawan karay laakiin khalad ma aragtaa shirkadaha inay jaraan anagu go'aan dawladeed baan fulinayni laakiin wasiirka isgaarsiinta ma waxa ka tirsanay dawladda go'aan dawladdu waxay gaadhay inuu fulinayni go'aan dawladeed baa runtiina waxaan leenahay waxa go'aan ku habboonaa maalinta markay gaadhay aad baad mahadsantahay Dr. Cabdulla Sheekh Cabdullaahi Suufi wasiirka isgaarsiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waraysi Mansour Hotel kaga qaaday wasiirad mahadsantahay aad mudan